نبي الله يا نور العين sida aad u jeedaan waxaynu ku sugannahay iskooska Hotel Tawfiiq ee degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho waxaynu safar aan ku gaari doonaa degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo aan u qayb gali doono siyaaradu sheeqeen oo halkaas ka dhacayso waxaan halka lagu xusi doonaa Allah u naxariistay caalimkii weynaa Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Umar oo loo yaqaan Sheekh Cabdi Cali iyo wiilkiisi ahaana qaliifkiisa Sheekh Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Umar Sheekh Cabdi Cali safarka waxa maanta nagu weheliya Sheekh Maxamed Sheekh Daawud oo ku magac dheer Sheekh Buna Sheekh nala socda الله نبي الله يا نور العين رسول الله يا نور العين حبيب الله يا نور العين صلى عليك الله زين أبو من ذوي المزية وأمه ذات سعدية فقد أرضعته سعدية بإذن رب المشرقين نبي الله يا نور العين wali waxaan ku jirnaa safarkii aan ku gaari lahayn degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaynu soo gaarnay deegaanka xirka dheere ee duleedka magaalada Muqdisho صلى عليك الله زين فلا أدري بما أقول بمدحي تزيل حتى به همي يزول بذر نور الحاجبين يا نبي الله يا نور العين daawadayaal habeen wanaagsan waxaan iminka dukanay salaada maghrib oo ay wadada noogu gashay halkan aan taaganahay waa deegaanka Maxay oo 15 kiiloomitir u jirta degmada Warshiiq صلى عليك الله زين الله شوقي لسعد خلق الله هو عين سر الله وسد في عباد الله daawadayaal sida u jeedaan waxaan iminka oo habeen ah aan soo gaarnay degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana qayb ka noqon doonaa siyaarada sheeqeenka oo halkan ka dhacayso Saadaam Cabdulle Siyaad hoyga diinta TV degmada Warshiiq gobolka Shabeellaha Dhexe